السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودواد أصابت ملك السودان كجوكتين وقصة كريئات مهمة موغال كان اللايك صار سمير فوق وقارو يوتيوب كان سبسكرايب نو صار آتيات مهسنتين مامو نذيرة ومامو كسوجيدا ودنك أردن وهي كنوشحي قربها وهي دهدي وهي اسقور سنين إلهي سبحانه وتعالى وهو نسيي سده عرورتيني وينو وينادين markay gaareen aruurteeni 8 sano 10 sano iyo 12 sano maalmaha kamid waan fikray ay tiri waxaan ka fikray mustaqbalka aruurtayda waxaan ku yiri aabahooda waxaan rabaa in aruurteena aanan geynin iskuulada gaalada ninkaygu waa iga aqbalay maalintaas wixii ka dambeeyay waxaan go'aan ku gaaray inaan ilmahayga baro weysaqaadka iyo salaada door maalmood kadib ilmahayga waxay ii barteen habka loo weysaqaata maalin waliba waxaan isku day jiray inaan ilmahayga baro quraanka kariimka iyo salaada ilmahayga waxay noqdeen ilmo tarbiyeysan oo ku dadaala salaada aabahooda ayaa maalmaha kamid ah wuxuu igu yiri waxaan helay macallin ee ilmaha waxaan rabaa inaan geeyo dugsi quraan anigana waxaan ku yiri dhimalahan ee noo geey ilmahayga waxaa la geeyay dugsiga quraanka markay yimaadaan bareegay mar waliba waxay weydiin jireen cunto anigana waxaan ku dhihi jiray salaada tukada markay salaada tukadaan ayaan waxaan ku dhihi jiray ilaahay subhanahu wa ta'ala wax weydiista ilmahayga sidaas ay sameyn jireen maalin waliba anigana waxaan u diyaarin jiray cuntada markay salaadooda dhameystaan cuntada ayaan siin jiray maalmaha kamid ah aabahooda ayaa cuntadeeda soo daahay anigana ma aanan sameynin wax cunto ah salaadii ayaan iska tukaday quraanka kariimka ayaan akhristay wax yar kadib waxa imaaday aruurtaydii sida la isku ogaa waxay bilaabeen inay weyse qaataan oo salaadooda tukadaan ilmahayga sida aadadooda ahaan jirtay maalin waliba qol ayaan tadooda u gelin jiray qolkii ayay ku ordeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u diyaariyay cunto ilmahayga qolkii waxay ka heleen cunto murugadii ihaysay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa iga fiiday sheekadani waxaynu ka fahmaynaa muhiimada ay leedahay in ilmaha lagu tarbiyeeyo ku hirnaashaha ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii aad ka cabsatid ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku arzuqaya ilmahani waxaa lagu tarbiyeeyay inay ilaahay subhanahu wa ta'ala salaadiisa ku dadaalaan inay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xirnaadaan waxa barbaarisay hooyo ahludiina ilmihii ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa irzaagay maalintaasi hooyada waxay la welwelsanayday ilmaheeda maanta dugsiga markay ka yimaadaan cuntada siin lahayd bedelkeeda ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa cuna u diyaariyay sheekadani waxaynu ku fahmaynaa laba qodob oo aad u waaweyn qodobka koowaad muhiimada ay leedahay inaad iska fiirisid aruurtaada hooyadooda waa inaad ku dadaashaa hooyada aruurtaada inay noqoto hooyo ahludiina sida maamadani oo kale ilmaheeda waxay ka fikirtay mustaqbalkooda iyo siday noqon doonaan barito waxayna go'aan ku gaartay inay ilaahay subhanahu wa ta'ala xarigiisa ku xirto inay ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa ay barto inay quraanka kariimka barto weysaqaadka inay barto qodobka labaad ee halkaan ka fahmi karno waxay tahay cid risqiga bixisa inay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala uusan jirin qof kale ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa meelo fara badan ayuu uga hadlay muhiimada ay leedahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala wax la weydiisto ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa irsaaqda bixiya waa inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kalsoonaataa sida ugu kalsoon yihiin shimbirta subaxdii way duushaa ayadoo bogeeda faaruqa ilaahay subhanahu wa ta'ala ay iska tala saartaa galabtii markay soo laabatan waxay timaadaa ayadoo dherigsan adagana waxaa laga rabaa inaad shimbirkaas oo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala u tala saaratid ilaahay subhanahu wa ta'ala waa kugu filan yahay waana ku qoodin karaa adagana waxaa laga rabaa inaad aaminaadaas la imaadid qisadani waxaan rajaynayaa waxyaabo fara badan inaad ka faa'iideen muuqaalkani like saar si meel fog u gaaro youtube-keena subscribe noo saar aad u mahadsantihiin antaan muuqaaligan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatu.